waxaa muuqaalkan ku qaadaa dhigi doona geerida ku tumisayga boqoradda Ingiriiska Princess Philip iyo taariikh nololeedkiisa. waxaa geeridiisa ka falceliyay inta badan madaxda caalamka. Amiirka ayaa boqoradda oo xilligaas ahayd Princess Elizabeth guursaday sanadkii 1947 5 sano ka hor inta aysan noqon boqorad. waxa uuna ahaa seygii ugu muddada dheeraa kaasoo ka howlgalay taariikh nololeedka boqoradda Ingiriiska. bayaan ka soo baxay qasriga Buckingham ayaa lagu yiri waa murugo qoto dheer in boqoradda ay ku dhawaaqdo geerida seygeeda ay jecleed Princess oo ahaa amiirka Edinburgh. amiirka darajada boqortooyada leh waxa uu u geeriyooday si nabad ah isagoo ku sugan Windsor Castle. Princess Philip iyo boqoradda waxay isu dhaleen 4 caruur ah. 8 caruur ahna waxaa sii dhalay ilmahooda halka 10 ay caruurtaasi kale sii dhaleen. 16 bishii March ayuu Prince Philip dib ugu soo laabtay qasriga Windsor kadib markii uu hal bil ku jiray isbitaal. dadweyne ayaa ubax hordhigaya qasriga iyadoo boqortooyada u muujinaya sida ay ugu murugaysan yihiin geeridii ku timid Philip. sidoo kale waxaa isa soo taraya fariimaha tacsida leh ee ka imaanaya madaxda caalamka. ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in amiirku uu ahaa dhalinyarada dhiirigelin. baarlamaanka Ingiriiska ayaa Isniinta qadarin u sameyn doona amiirka iyadoo kalfadhi gaar ah loo sameyn doono tacsidiisa. wuxuu ahaa door qof walba ku adkaan lahaa iska daa nin ka tirsanaan jiray taliska ciidamada badda oo aaminsanaa fikrado adag kuna aadan arrimo badan. sidaasoo ay tahay shakhsiyadiisii awoodda badneed ayaa u suuragelisay in uu si buuxda u guto waajibaadkiisa uuna taageero kal iyo laab ah siiyo xaaskiisa isagoo ku garab istaagayay doorkeedii boqoradnimo. isagoo ahaa boqoradda ninkeeda Princess Philip wax xil dastuuri ah ma uusan lahayn laakiin ma jirin qof boqortooyada ugu dhawaa ama ugu muhiimsanaa sidiisa oo kale. Princess Philip oo ka soo jeeday Gariiga ayaa wuxuu dhashay 10 bishii Juun ee sanadkii 1921 wuxuu ku dhashay jasiiradda Corfu. warqadiisii dhalashada waxay muujinaysaa in ay taariikhdu ahayd 28 May 1921 maadaama xilligaas Gariiga uusan ku dhaqmi jirin jadwal taariikheed oo loo yaqaan Gregorian. aabihiisa wuxuu ahaa Prince Adaro oo u dhashay Gariiga. wuxuu ahaa wiilkii ugu yaraa ee boqor George I oo ka soo jeeda Hellenes. hooyadiisa waxay ahayd Princess Aliza oo ka soo jeeday Bottenberg. waxay ahayd gabadhii ugu yareed caruurta uu dhalay Prince Louis oo reer Bottenberg ah. wiilasha waxay ahayd Eyre Mountbatten oo ka soo jeeday Burma. kadib markii uu dhacay afgambigii Dieted sanadkii 1922 aabihiisii waxaa laga soo eriyay Gariiga kadib markii ay ciqaabtaasi ku riday maxkamadda ay samaysteen kacdoonkii xukunka ka tuuray. markab dagaal oo laga lahaa Britain oo uu u soo diray ina adeerkiisa ama ina abtigiisa labaad ee lagu magacaabi jiray boqor George V ayaa qoyska u kaxeeyay Talyaaniga. Philip oo markaas ahaa ilmo yar ayaa wuxuu safarka badda intiisa badnaa ku dhex jiray dambiil laga sameeyay kartoonka oranjada. wuxuu ahaa cunuga ugu yar ama wiilka kaliya ee qoys ku dhex jiray caruurtooduna wada gabdho ahaayeen. caruurnimadiisii ugu horeysayna wuxuu ku qaatay jawi jaceyl ku dheehan yahay. amiirka wuxuu waxbarashadiisa ku bilaabay dalka Faransiiska laakiin markii ay da'diisu ay 7 sano wuxuu tegay England si uu ula noolaado qaraabadiisa halkaas oo uu dugsigiisa sare ku dhigtay degmada Surrey. xilligaas markii la joogay hooyadiisii waxaa ku dhacay cudurka loo yaqaano schizophrenia oo ah xanuun waxleeya dhimirka qofkana u diida in uu fakiro ama si caadi ah ula dhaqmo. waxaana la siiyay magangelyo. amiirka da'da yar xiriir aad u xadidan ayuu la lahaa iyada. sanadkii 1933 waxaa loo diray iskuul ku yaala dalka Jarmalka kaasoo uu maamulayay macalinka waxbarashada ku xeel dheera ee lagu magacaabi jiray Karl Hahn. laakiin dhowr bilood kadib Hahn oo Yahuud ahaa wuxuu ku qasbanaaday inuu ka cararo Naaziga. Hahn wuxuu u guuray Scotland
halkaasi oo uu ka aas-aasay iskuul kaasoo amiirka loo soo bedelay kadib markii uu 2 sano dugsiyeed kaliya ku soo qaatay Jarmalka. Gordon Stone oo ahaa iskuul rafaad badan qof walbana laga doonayo inuu isdaba baro ayaa hooy u noqday wiil dhowr iyo 10 jir ah ee waalidkiisu ay kala fogaadeen dareemayaan inuu kaligiisa yahay. maadaama ay saansaan dagaal jirtay, Amiir Philip wuxuu go'aansaday in uu xirfadiisii ka dhigo military isagoo wuxuu doonayay in uu ka biiro ciidamada cirka ee boqortooyada. laakiin qoyska hooyadiisa ayaa ahaa dad dhaqan u lahaa ku safridda badda, sidaas awgeed wuxuu tababar ka bilaabay macadka ciidamada badda ee Britain ee Britannian Royal Naval oo ku yaala Dartmouth. intii uu halkaasi ku sugnaa waxaa loo xilsaaray inuu weheliyo labada amiirad ee yaryar Isabella iyo Margaret mar ay boqor George VI iyo boqorad Isabella booqasho ku tegay macadka tababarka ciidamada badda. sida laga soo xigtay goobjooge, Amiir Philip si wanaagsan ayuu ugu soo baxay shaqadiisa, laakiin kulankaasi wuxuu aad u cajibiyey amiirad Isabella oo ahayd 13 jir. Philip si dhaqso ah ayuu u cadeeyay in mustaqbalkiisa aad u wanaagsan yahay. wuxuu heerka ugu sareeya ka galay fasalkiisa bishii January ee sanadkii 1940. wuxuu markii ugu horeysay nasiib u yeeshay in uu ficil military ku arko badweynta India. waxaa loo gudbiyey markabka dagaalka ee HMS Valiant oo qayb ka ahaa maraakiibtii ku sugnayd badda Mediterranean-ka, halkaasi oo markii ugu dambena magaciisa loogu xusay kaalintii uu ku lahaa dagaalkii Cape Mataban ee 1941. maadaama uu ahaa askari mas'uul ka ahaa nalalka wax lagu raadiyo, wuxuu qaatay kaalin muhiim ah oo qayb ka ahayd howlihii dhacay habeenkaas howlgalka taariikhiga ah ee la fuliyey. waxaan arkay markab kale wuxuuna ka holcaayay bartanka. mar qura ayuu hoos ku aasmay madfac hubiye ah ee Salvo of 15 inchi oo lagu riday qaab cabir ah, ayuu ku yiri wareysi uu sanadkii 2014 siinayay idaacadda BBC Radio 4. markii la gaaray bishii Oktoobar ee sanadkii 1942, wuxuu ka mid noqday laba xidiglayaashii ugu da'da yaraa ee abid ka mid noqda ciidamada badda ee boqortooyada, isagoo ka howlgalayay markabka burburiyaha HMS Wallis. muddadaas oo dhan isaga iyo amiirada da'da yar ee la yiraahdo Isabella waxay isdhaafsanayeen warqado dhowr jeer ayaana lagu martigeliyay in uu la joogo qoyska boqortooyada. mid ka mid ah booqashooyinkiisa oo dhacay xilligii ciidda Masiixiyadda ee sanadkii 1943 ayay Isabella miiskeeda labiska saartay sawirka Philip oo xiran dharka ciidamada badda. xiriirkoodii wuxuu sii xoogeystay waqtigii nabadda, inkastoo uu ka soo horjeestay mid ka mid ah la taliyayaasha boqortooyada kaasoo Amiir Philip ku tilmaamay qof qalafsan oo si qaldan u fikira. laakiin amiirada da'da yar jeceyl daran ayaa hayay. sanadkii 1946 ninka ay iscalmadeen ayaa boqorka ka dalbaday inuu gacanteeda u dhiibo si uu u guursado. kaasa yeeshee intaan lagu dhawaaqin faraantigelintoodii, amiirka wuxuu u baahnaa inuu dhalasho cusub helo iyo in uu yeesho magac qoys. waa inuu ka tanaasulaa xilkiisa boqortooyo ee Giriiga uuna noqdo muwaadin British ah, isla markaana uu qaato magaca qoyska hooyadiisa ee Ingiriiska ah. maalinta ka horeysay xafladda arooska, boqor George ayaa xilka ku biirista boqortooyadiisa ku sharfay Philip. subaxdii uu arooska dhacayna waxaa loo magacaabo inuu noqdo amiirka Edinburgh, Merton iyo Greenwich. arooska wuxuu ka dhacay kaniisadda Westminster Abbey 20kii bishii November ee sanadkii 1947. waxay ahayd sidii uu u dhigay Winston Churchill iftiin midabo leh oo u bidhaamay Britain markii ay dagaalka ka soo baxday. amiirka xilka cusub la wareegay wuxuu dib ugu laabtay xirfadiisii ciidamada badda, waxaana la geeyay Malta, halkaasi oo in xoogaa ah ay joogay ugu yaraan si ay lamaanaha u arkaan noloshooda dadka caadiga ah ee qoysaska kale aan boqortooyada ka tirsanayn. wiilkooda Amiir Charles wuxuu ku dhashay qasriga Buckingham sanadkii 1949.
gabadhooda Amiirad Anne waxay iyaduna dhalatay sanadkii 1950kii. waxaa markii dambe ku soo biiray Amiir Andrew oo dhashay sanadkii 1960kii iyo Amiir Edward oo dhashay 1964kii. labadii bishii September ee sanadkii 1950kii wuxuu hirgeliyay guusha uu askari walba oo ka tirsan ciidanka badda uu ku hamiyo kadib markii taliye looga dhigay guuto u gaar ah markabka dagaalka ee HMS Macbeth. laakiin xirfadiisii ciidanka badda waxaa ku socotay in la xadido xaaladii caafimaad ee Georgia oo sii xumaanaysay awgeed. gabadhiisii ayaa ku khasbanaatay in ay la wareegto waajibaadka dheeraadka ah ee la xiriira boqortooyada waxayna u baahatay in ninkeedu uu garab taagnaado. Philip wuxuu fasax ka qaatay ciidamada badda ee boqortooyada bishii July ee sanadkii 1951. weligiisa dambe kuma uusan laaban shaqada. amiirka ma uusan ahayn nin qoomameeya, laakiin goor dambe wuxuu sheegay in uu ka xun yahay inuu sii wadan waayay xirfadiisii ciidamada badda. dadkii ay iskuuloodka ahaayeen waxay sheegeen in uu sii wadan karay howshiisii haddii uu sidaas samayn lahaa uu gaari lahaa darajada ugu sareysa ee ciidanka badda. sanadkii 1952 lamaanaha boqortooyada waxaa loo diray safar ku wajahnaa dalalka barwaaqo sooranka oo markii hore ahaa qorshihiisii in ay aadaan boqorka iyo boqoradiisa. ayagoo jooga beer xayawaanada lagu xanaaneeyo ee ku taala dalka Kenya ayaa bishii February ee sanadkii 1952 loo soo sheegay warkii ku saabsan in uu geeriyooday boqorka, wuxuuna u dhintay xanuun ku dhaca wadnaha oo aad u halis badan. amiirka ayaa waajib ku noqotay in uu xaaskiisu u sheego in ay hadda iyadu tahay boqorad. qof saaxiib lah ayaa goor dambe marxaladaasi ku qeexayay in Amiir Philip uu u muuqday qof dusha laga saaray kalabar adduunka. maadaama uu waayay xirfadiisii ciidamada badda wuxuu ku qasbanaa in uu yeesho door u gaar ah. markii ay Elizabeth boqortooyada la wareegtayna waxaa sii weynaatay su'aasha ku aadan waxa uu doorkiisa noqon karo. markii uu soo dhawaaday caleemasaarka boqoradda, warqad ka soo baxday boqortooyada ayaa lagu sheegay in Amiir William uu leeyahay muhiimadda ku xigta boqoradda. haddana sidaas ay tahay weligiisa ma uusan qabanin xil dastuuri ah. amiirka wuxuu hayay fikrado badan oo ku saabsan sidii loo casriyeyn lahaa loona nashqadeyn lahaa boqortooyada, laakiin waxaa aad ugu soo horjeestay qaar ka mid ah odayaasha muddada dheer ee la taliyaasha ka soo noqday qasriga. tamartii badneed ee uu hayay intuu isu geeyay ayuu samaystay nolosha dhinaca bulshada ah. isaga iyo koox saaxiibo rag ah ayaa isbuuc walba ku kulmi jiray qolalka sare ee maqaayadda ku taala deegaanka Soho ee bartamaha London. waxay tagi jireen kuna soo daahi jireen baararka lagu caweeyo inta badan, waxaana lala soo sawiri jiray saaxiibo qurux badan. halka meel ee uu amiirku xor u ahaa in uu maamulo waa qoyskiisa, inkastoo uu ku guuldareystay dagaalkii ku aadanaa magacay caruurtiisa qaadan doonaan. go'aankii boqoradda ee ahaa in qoyska uu qaato magaca Windsor halkii ay qaadan lahaayeen magaca qoyska Mountbatten ayaa ku noqday guuldaro qaraar ah. waxaan ahay ninka kaliya ee waddankan aan looga ogolaanin inuu caruurtiisa magaciisa siiyo, ayuu ugu cawaday saaxiibadiis. wax aan ahay ma jiro oo aan ka ahayn Amoobio xun. Amoobio waa cunug ka mid ah cunugyada jiirka. waalid ahaan Amiir Philip wuxuu noqon karaa qof xasaasi ah iyo qof aan dareen lahayn labadaba. sida uu sheegay ninka qoray taariikhda Amiir Charles oo lagu magacaabo Jonathan Dombobi. Charles wuxuu la ooyay hadalladii iyo ay aabihiisa ku canaantaan dadweynaha. xiriirka wiilka curadka ah iyo aabihiisa weligiisa ma hagaagsanayn. Philip wuxuu ku adkaystay in Amiir Charles uu waxbarasho u aado iskuulka oo isagu hore u soo dhigtay ee Grandson, isagoo aaminsanaa in culeysyada ka jira halkaasi ay wiilkiisa ka caawin karaan inuu ka baxo caajisnimada. markii halkaas loo diray amiirka da'da yar wuu nacay iskuulkaas.
kadib markii uu la xanuunsaday xisada uu u qabay guriga. Inta badanaa ciyaalka iskuulka ay ku dhibayeen iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsanayay. Amiirka aabbaha ah wuxuu iskuulkaas adeega uga qaaday maadaama uu markii hore la soo qabsaday kelinimada intii uu carruurta ahaa. Isagoo aad u da'yar ayaa lagu qasbay inuu isbaro keligiis, wayna ku adkaatay inuu fahmo sida aysan cid walba awoodda shakhsiyadeed oo kale lahayn. Mid ka mid ah walaacyada ugu weynaa ee Amiir Philip wuxuu ahaa sidii samafal loogu sameyn lahaa dhalinyarada. Sanadkii 1956 ayuuna isagoo arrintaas ka duulaya daahfuray barnaamijka sida weyn u guuleystay abaalmarinta Amiirka Edinburgh. Sanadihii ugu barnaamijkaas socday wuxuu sahlay in ilaa 6 milyan oo dhalinyaro ah oo isugu jira kuwa lixaadkooda qaba iyo kuwa naafo ah oo ay dhammaantood da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 20 sano ay caalamka oo dhan kaga yimaadeen kuna soo loolama jireen maskax ahaan iyo dareen ahaan, ayagoo sameynayay bandhigyo la daawado oo loo nashqadeeyay si loo xoojiyo wada shaqaynta, iscaawinta iyo qadarinta dabiiciga ah. Haddii aad heli karto dhalinyaro ku guuleysta noocyo ka mid ah bandhigyada ficilkaas cajiibka ah, wuxuu sii gudbinayaa dad kale oo badan, ayuu ku yidhi BBC-da Amiir Philip. Intii uu noolaa oo dhan, amiirku wuxuu waday inuu waqti badan geliyo barnaamijkaas, isagoo ka qayb galay munaasabado badan, sidoo kalena ka qayb noqday howlaha barnaamijkaas ee maalinlaha ah. Amiirka wuxuu u doodi jiray xayawaanada duurjoogta iyo deegaan joogta, inkastoo ay caro ka dhalatay mar uu shabeel ku toogtay dalxiis uu joogay waddanka Indiya ee sanadkii 1961. Markii la baahiyay sawir muujinaya shabeelka oo loo soo bandhigay sidii koob lagu guuleystay, ayay carada ka sii dartay sidii hore. hase yeeshee markii dambe waxa uu isaga iyo saameyntiisa adeegsanaya juhdi aad u badan iyo dhaqaale ku bixiyay ilaalinta xayawaanka duurjoogta ah. waxa uu dadaalkiisa isu bedelay sanduuqa caalamiga ah ee lagu maalgeliyo bii'ada, wuxuuna si dabiici ah ugu muuqday in uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee hay'adaas. in ay arrin cajiib ah ay tahay inaan adduunkan ku haysano nolol noocyo kala duwan leh oo dhammaanteena kala madax bannaan, ayuu ku yidhi waraysi uu siiyey BBC-da. waxaan u malaynayaa in sidoo kale haddii anaga oo bini'aadanka ah aan haysano awoodda nolosha iyo geerida, ama mabaadi'da ama badbaadida, waxaan u isticmaali lahayn oo anshax ku dheehan yahay. maxaad u baabi'inaysaa wax haddii aadan ku qasbanayn? waxa uu ka xanaajiyey qaar ka mid ah dadkii u dooda xayawaanka markii uu difaacay toogashadii xayawaanka uu sameeyey ee cabashada sababay. haddii aad haysatid xayawaan aad ugaarsatid, waxaad ogaanaysaa si aad u noolaatid, sababtoo ah waxaad rabtaa inaad sanad kale gaartid. waa isla sida beeralayda, waxaad doonaysaa inaad dalagaaga soo goosatid, mana kala soocaysid. laakiin waxaa aad loogu ammaanay sida uu ugu dadaalay in la ilaaliyo keymaha caalamka iyo olole uu u sameeyey yareynta kalluumaysiga laga sameynayo badaha caalamka. Amiir Philip wuxuu sidoo kale daneyn jiray warshadaha, isagoo booqday warshado badan isla markaana taageero dhinaca dhaqaalaha u fidiyey dadka adeegsada warshada oo hadda loo yaqaano aasaaska shaqada. koox warshadayaal ah ayuu sanadkii 1961 amiirku u muujiyey dabeecad caajisnimo ah markii uu ku yidhi, mudanayaal, waxaa la joogaa waqtigii aan faraha kala bixi lahayn. mid ka mid ah hadalladiisii muranka ugu weynaa dhaliyey wuxuu sheegay mar uu boqorada ku weelinaya booqasho ay ku tagtay Shiinaha sanadkii 1986. waxa uu sheegay hadal uu u maleynayay in mid qaas oo aysan cid kale maqlayn oo uu ku saabsan indho dhuubanaan. wargeysyada ayaa aad u bunbuuniyey inkastoo ay u muuqatay in Shiinaha uu ahaa hadal aan wax laga soo qaadin.
walow aad loogu dhaliili jiray hadallada qaar ee uu jeediyey dadka kale, waxay u arkayeen in ay ka turjumayaan qof si iskiis ah u hadlayay oo ka soo horjeestay inuu ka tirsanaado siyaasadda iyo is-xisaabinta joogtada ah. run ahaantii dad badan waxa aad wax loogu sheegay hadalladiisii ceebta keenaya ee afkiisa ka soo baxayay oo ay u arkayeen wax aan ka badnayn madadaalin. intii uu noolaa oo dhan Amiir Philip wuxuu si joogto ah u jeclaa ciyaaridda kiriketka iyo boola wadista fardaha. waxa uuna sanado badan ahaa madaxweynaha xiriirka caalamiga ah ee fardafuulka. xiisadaha kala dhexeeyay wiilkiisii curadka ahaa waxay banaanka u soo baxeen kadib markii la daabacay taariikh nololeedkii uu Jonathan Dumbleby uu ka qoray Amiir Charles. Amiirka Edinburgh waxaa sidoo kale loo sheegay in uu Charles ku riixayay inuu guursado Marwadinea Spencer. sidaasoo ay tahay amiirka aad buu ugu walaacay markii carruurtiisa ay dhibaato kala kulmeen guurka. wuxuu hogaaminayay dadaallada lagu doonaya in lagu fahmo meesha ay ka socoto dhibaatada, oo laga yaabo in ay asal ahayn oo ay ka timid culays uu kala kulmay inuu haweeney ka guursado qoyska boqortooyada. amiirka waxa uu howlihiisii bulshada ka fadhiistay bishii Agoosto ee sanadkii 2017 kadib 10 sano uu garab taagnaa boqoradda, isla markaana fulinayay howlihiisii samafalka iyo shaqooyinkiisii hay-adiisa. qasriga Buckingham ayaa xisaab uu soo saaray ku sheegay inuu sameeyay 22,219 waxqabad oo kaligiisa ah tan iyo sanadkii 1952. Theresa May oo xilligaas ahayd ra'iisul wasaaraha Britain ayaa ugu mahadcelisay adeegii wax ku oolka ah ee uu soo qabtay shacabka. Philip waxa uu sanad guurada 70aad ee guurkiisa xusay goor dambe oo sanadkaas ah. amiirka ayaa waxa uu ka badbaaday shil gaari oo aad halis u ah xilli uu gaari ku kaxeynayay meel u dhow Sandringham bishii January ee sanadkii 2019. laba haween ah oo ku jiray gaariga ayaa ku dhaawacmay. amiirkuna wuxuu si iskiis ah u wareejiyay shaatigiisii gaari wadista. inta uu socday cudurka safmarka ah ee corona, Philip iyo boqoradda waxay u guureen xarunta Windsor. talaalkana waxaa la siiyay bishii January ee sanadkan 2021. Philip waxa uu ku guuleystay in uu doorkiisa u adeegsado waxtar badan oo uu ku soo kordhiyay nolosha Britain iyo in uu qaatay kaalinta uu ku caawinayo boqortooyada si ay isbedelo badan u sameyso sanadihii ay jirtay. laakiin guushii ugu weyneed ee gaaray shaki la'aan waxay ahayd sida joogtada ah ee hiil iyo howl uu garab taagnaa boqoradda sanado badan oo xilka haysay. wuxuu aaminsanaa in ay shaqadiisu ahayd sida uu sheegay qoraaga taariikhdiisa qoray inuu xaqiijiyo in ay boqoradda ay xilka hayso. khudbad ay ka jeedinaysay xaflad lagu xusay guurka dahabiga ah ee lamaanaha ayay boqoradda ku ammaantay ninkeeda oo ahaa seygii ugu waqti dheeraa ee abid boqortooyada soo mara taariikhda Britain. waa qof aan jeclayn in la ammaano, laakiin si fudud waxa uu i ahaa awoodeeda iyo taageeradeeda dhammaan sanadihii aan wada joognay. aniga iyo qoyskeyga oo dhan iyo waliba dalkan iyo wadamo kale oo badan. wuxuu ku leeyahay deen ka weyn wax uu afkiisa ku sheegi karo ama aynan weligeena ogaan karin inta ay la og tahay. sidoo kale hogaamiyaasha caalamka ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Amiir Philip, ayadoo fariimo tacsiyaha u soo diray qoyska boqortooyada ee qasriga Buckingham kadib markii lagu dhawaaqay geerida Princess Philip oo ahaa amiirkii Edinburgh kaasoo ku dhintay da'da 99 sano. boqortooyin, madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal isugu jira kuwa hore iyo kuwa hadda xilalka haya ayaa ka tacsiyadeeyay dhimashada seega boqoradda Ingiriiska. amiirka dhintay ayaa boqoradda wuxuu ku wehlinayay ilaa 100 booqasho oo ay ku tagtay meelo ka mid ah caalamka. wuxuu tusaale lagu dayo u ahaa jiilka aan weligooda dambe dib u arkaynin, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison.
Johnson ayaa sheegay in amiirku uu taageero joogto ah siin jiray boqoradda sidoo kalena uu garab taagnaa hay-ado oo ka tirsan Australia. Hogaamiyihii hore ee dalkaas Julian Gillard ayaa sheegtay in amiirku uu ahaa nin waajibaad badan hayay taageero buuxdana haystay. Boqor Carl Gustaf ayaa sheegay in amiirku uu ahaa saaxiib wanaagsan oo qoyskiisa ay isu dhawaayeen sanado badan, xiriir aad u wanaagsanaan uu ka dhaxeeyay. Afhayeen u hadashay qoyska boqortooyada Sweden oo lagu magacaabo Margareta Thorgan ayaa sheegtay in boqorka iyo boqorka dhinta ay si wadajir ah markab ugu raaceen England, ayadoona intaasi ku dartay safarkaas wuxuu bilow u ahaa saaxiibtinimo aad u weyn oo ka dhaxaysay labadooda. qoyska boqortooyada reer Holland ayaa sheegay in ay Prince Philip ku xusuustaan qadarin aad u ballaaran, waxayna intaas ku dareen wuxuu noloshiisa oo dhan u qoondeeyay inuu u shaqeeyo dadka reer Britain iyo gudashada waajibaadkiisa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa ku ammaanay amiirka inuu ahaa nin sharaf badan, isagoo sheegay in Prince Philip uu soo qabtay nolol dheer oo xusuus badan, uuna ahaa nin u qalmay naftiisa iyo dadka kaleba. Boqor Philip ayaa fariin tacsi ah oo qaas ah u diray boqoradda, wuxuuna sheegay inuu rajeynayo inuu si toos ah ula hadlo boqoradda marka ay macquul noqoto. Waxaan si dhab ah ugu naxay geerida Prince Philip oo gurigiisa ku dhintay. Maanta marar badan ayuu ku soo noqon jiray halkan, dalkeena weligiis wuu xasuusan doonaa, ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Roberta Abela. Ra'iisul wasaare Jacinta Ardern ayaa tiri, anigoo ku hadlaya afka shacabka New Zealand iyo dowladda, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa boqoradda iyo dhammaan qoyskeeda. Ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa sheegay inuu murugada la qaybsanayo shacabka Britain iyo qoyska boqortooyada. Wuxuu sheegay in amiirka dhintay uu sharaf ku lahaa xirfadda militariga, uuna hormuud u ahaa howlo samafal oo ka noo socday dalal badan. Waxaana intaas nooga eg barnaamijkii aan kaga hadlaynay Amiir Prince Philip. haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore u joogtana like saar muuqaalkan. wixii fikrad iyo ra'yi ahna qaybta comment inoogu reeb.